waxaan aada u jeclahay inaan halka iyadana ka xuso dhammaan intii ka soo shaqaysay aasaaskii puntland oo runtii wakti iyo maskax iyo maal iyo muruq gelisay oo ugu mudnaayeen dhismadii dalka xilligaa wixii noolaa iyo cid kasta oo taa kula ka soo qaadatay tabantaabadii puntland lagu aasaasay. waxaan si gaara halka uga ducaynaynaa intii dhimatay oo islaan maxamed islaan ciise ugu horeeyo, madaxweynayaashii soo maray puntland ee geeriyootay madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo madaxweyne cadde. inta nool waxaan u baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad oo ugu mudan yahay madaxweyne maxamed cabdi xaashi oo runtii da iyo xanuun la sheega ma hayo, waan soo arkay laakiin gabow baa haya. inta kaleetan waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo shaqo wanaagsan. dhammaantiin waxaan rajaynayaa guushaas aan gaarnay inaan mar walba xasuusaano anuu ciddii ka soo shaqaysay oo aan la ilaaway. runtii waxaa halka ka soo baxay waa taladiinnii. waxaa halka la isugu yimid waa gogol wada tashi. marka la leeyahay waa la wada tashanayaa, puntland cid laga tegey ma leh. puntland kuwo ku jira xukuumadaha heer federaal iyo heer puntland iyo bulshada qaybaheeda kale, kuwa xukuumadda halka hadda ka jirta mucaarad ku ah iyo muxaafidkeeda, kuwa puntland kuwa federaalka ka jira mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda, isin, dhallinyaro, waayeel. waxaa keliya oo halkan looga soo qaybgalaya waa inay yihiin dadka reer puntland ku bahoobay iyagoon kala sooc iyo kala saarsaar lahayn, oo ay u dhan yihiin halka, oo ay ugu dambeeyeen ka soo qaybgalka puntland midnimadeeda dhuleed iyo dadeed. waxaa ugu dambeeyey degmooyinka towfiiq iyo saaxo, intaba halka waa lagu dhammaanay. taas waxay muujinaysaa in wada tashi dhab ah u ah. markii la yidhaahdo ha la wada tashado, taladu waa ay kala duwanaanaysaa. maalmihii u dambeysay waxaad ka dheehanayseen hadallada halka ka baxaya aragtiyo kala duwan iyo qorshayaal qof walba u muuqda. doodihii shalay la galay waxay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo garaadka reer puntland. waxaad og tihiin oo halka markhaati ka tihiin qaybaha qaybtood qaar baa gacan iskula tegay doodaha xamaasadooda iyo heerkay taageen. waa sharaf. puntland waa kala ra'yi duwanaan kartaa, waa isku diidi kartaa, laakiin ma kala tegi karto. ma kala tegayno. midnimadeenna waan dhowraynaa, mar walbana waa wada jiraynaa haddii ilaahay idmo. waxaa halka aada loogu nuxnuuxsaday puntland ahdaafta loo aasaasay. waxaa la yidhi waa gaartay, waxbaa qabyo ah. midnimadii soomaaliya weli waa kala dhintaalan tahay, waa qabyo. degaano soomaaliya ka mid ah waxay leeyihiin waa go-ayna, baadi goob bay u baahan tahay. waxaa lagu aasaasay ilaalinta midnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka. labadaba waxbaa ka nool, laakiin waxbaa qabyo ka ah. marka reer puntland waxaan u sheegayaa geediga a ku jirteen marxaladiisii ma soo xirmin, weli way socotaa. yaan la daalin, ha loo dhabar adeego wixiini lagu yaqaanay oo ah ka shaqaynta midnimada, marna ha ka tanaasulin. wixii halka laga soo jeediyey idinkaa soo jeediyey. waxaad u soo jeediseen golayaasha dowladda puntland. anoo magacooda ku hadlaya, wixii aad soo jeediseen waan aqbalnay. wixii ka hagaagsanna waa fulin doonnaa, wixii u baahan toosinna waan hagaajin doonnaa. kalsooni buuxda nagu qaba in aan taladiinna aanan dayacayn oo aysan noqonayn waxaad soo jeediseen oo keliya. waxaa ugu muhiimsanay talooyinka la soo jeediyey in puntland sidii lagu yaqaanay dowrka ay ku leedahay hoggaaminta iyo wax ka dhiska dowladnimada soomaaliyeed inay kaalinteedii aysan dib uga dhicin. horena waa u ballan qaadnay, waa ballan qaadaynaa. anoo taladiinna ka duulaya waxaan ku dhawaaqayaa gogol shir aan u qabanno dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah inay isugu yimaadaan magaalada garoowe oo aayaha soomaaliya iyo marxaladda cusub ee cakiran ay u cirbixiyaan. waan rajaynayaa in maamulada iyo dowladaha la doortay ay ku filan yihiin marxaladda adag soomaaliya inay ka gudbiyaan
وهذي لا تشهدان دكتور أنه قلت له وحان بلغ يا تلدين أن جيدونا بقشاس مركلين وحان كرجينا يا دكتور كرو مسؤولين ده أنا كروين كدكتور إن اللي مادان هدي دكتور ترى ولا مقلوب ترحام بدلوا هذا جرتي من المدو أي بحيسة دل كان قف يكوح وكوية وحكري ورمضة كراوة ودجر إسدجيسي إسمقل إسكوب دبرين إن تلم ذي سنة ودقات وحنا نقول باقيا إن دل الرئيس كنتلان أي هرمون والنقضان يمد الصومالية إلى بدباريان إلى مستقبل هذا كشقيان إلى ماركتي تلادودنا أي ميشاس جيا شركان شروة تشيوه بنتلان عندنا كعبا ميسو عندنا وعبا ميسو وحاي كنت شنيسا دنا هذا بنتلان وحاي وحكت لنيسا دناها الصومالية وحاي وحكو بيرنيسا أمد الصومالية وناقودي هرمركودا وحان دقيسان إن عيد كستو نقف فكر دوان وحانا جعلناها خلاف كستا أو ضد كاليتو رير بنتلان أي نور دحية وذا هذا اللي يسقنعين إنان كو قارنو ونحبض يقول أدميل كو قارن وحان رمتي وحي شرويناها اللي أرى لها إذن كاين ورمرتيات كينا كسو بندكتين وان رجينا يا ورمرتيات كاس وترسو جيدين داد كلا دوان أي سو جيدين لأنه يوصف فلان سيدا وجعليها كليين وقال وحو دبسلنا واركي وحو جعليها هنا واركي لكن وحاس وحال الرواء انت أديك كاقا أدنينا كقبتين وحا أمهم سنة وحا ودجركينا من لمدينا قدرك أمهم سنة وحالك كسوة بحي ورنتي الدولة بلق هذه السنة وحا تبشوينك لقبوه إنان أنا كقبلين سيديتها أنا أبارنو waxa ugu weyn aan aragnay idinkana waad aragteen oo wax badan waxa lagu xalin karaa markii laga guuro nidaamkii habka beelaha oo loo guuro nidaamka xisbiyada doodan oo dadka taladoodu dadka ay rabaan ay soo doortaan waxaan rajaynayaa dad la xisaabtami karo inay halka ka soo bixi doonaan waa qodob aad u muhiim waxa iyadana muhiim ah hay'adaha dawladda adkayntooda iyo dib u habayntooda maadaama muddo dheer ay soo jireen iyadana waxay u baahan tahay in gacan weyn la iska siiyo dhaqaalaha oo ah aasaaska ummadii ay meel ku noolaatay ama dawladda ku jirtana in dadka reer Puntland ay ahmiyad gaar ah siiyaan sidii dhaqaalaheena iyo ilaheena dhaqaale aan u kabacsannahay runtii maanta oo dhan baa la fadhiyay wax wanaagsan oo lagu farxaa ka soo baxay waxaan aad u fiirinayay maalmihii la joogay talada waxaa ka muhiimsanaa dad muddo badan iswaayay ayaa isku arkay halkan waa la sheekaystay waa la kaftamay waa la dooday waa la kala carooday laakiin waxaan rajaynayaa annagoo gacmaha iswada haysan inaan howlkan ka bixi doonno soomaalina waxa ay naga sugaysay inay naga heshay waan anigu qabaa dadkii soo shaqeeyey waxaan rajaynaynaa waddo cusub oo guul ah iyo annagu u wada guntana fulinta qodobadii halkaa laga soo jeediyey intii la kari karo oo dhan in gacan la isku siiyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad fikirkiina u dhibateen sida aad ugu dulqaadateen waxaan rajaynayaa in miisaanka xasanaad ilaahay inugu daro wixii aad qabateen Puntlandna waxaan u rajaynayaa waa cusub iyo horumar bilow ah oo kii hore ka ballaaran dadka Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa degenaansho iyo dawlad sharci iyo kala dambeyn iyo dimuqraadiyad ku dhisan oo aan la isjoogin la iscaburin fariinta kaliya aan diraya waxa weeye colaadaha ka socda dalka Soomaaliya in la joojiyo cid kastoo weli si gaara dawladda federaalka waxaan uga codsanayaa colaadaha gobolka Gadow inay il gaar ku eegto xal kuma imaanayo burbur baa ku imaanayo waxaan rajaynayaa colaadaha in la joojiyo hadday laba beelood u dhaxayso hadday laba maamul u dhaxayso iyo haddii cid kale u dhaxaysaba aad baan u rajaynaynaa inaan colaada ka soo daalnay waxaa keliya rabnaa inaan u midowno waa kuwa diinta iyo dowladnimada iyo dadnimada diidan ee xag jirka ah inaan dalka qabano kuwaasaan rabnaa inaan u midowno khilaafaadka siyaasadeed waxaan ku dhammayn doonaa wada hadal iyo safgarad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu